aad iyo aad ay u mahadsantihiin guddiga difaaca ee aqalka sare ee runtii waqti badan geliyey la tashiina geliyey ee sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida xaqiiqdii wuxuu soo maray wajiyo badan wuxuu soo maray golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee guddigiisa difaaca iyo golayaasha shacabka kadib ayuu wuxuu u soo gudbay aqalka sare sababaha loogu soo gudbiyey waxay ahayd in guddiga difaaca uu la tashiin sameeyo kadibna aad contributionkiina ku darsataan waxaa ka muuqata aqalka sare maanta inay joogaan dad khibrad badan u leh ciidamada qalabka sida qaybaheeda kala duwan ama horey saraakiil usoo noqday kana soo shaqeeyey barnaamijka hadda annaga aan wadna runtii ka soo shaqeeyey waa mahadsantihiin waxaan filayaa sida hadda gudoomiyaha guddiga difaaca uu sheegay dhammaan inta ugu badan xildhibaanada senatarada dhammaantooda way wada hadleen waxayna ka wada hadleen arrimaha quseeya ee sharcigan annaga waan sameynay laakiin meesha hadda aadka loo taabtay waxaa ka mid ah da'dan waxaa la sameeyey sharcigan 1900 waxaa la dhahay Bolotino officiale ayuu ku soo baxay waa sharci number 6 soo baxay 31 December 1969 oona la saxiixay 1 January 1970 uu saxiixay madaxweynaheenii geeriyooday Allah u naxariisee Maxamed Siyaad Bare wuxuuna ku qornaa da'diisa sida hadda kan annaga aan soo qornay uu qoran yahay waxaan filayaa waaga la sameynayay generaalka saaxiibkeena Abdiqaydiid hadda fadhiya iyo generaalada qaar way joogeen waagaas waxaana ku qoran da'da sida hadda aan ku soo qornay iyadoo waxba ka bedelnayn sababaha aan u qaadanay waxay tahay international standardka kuwa nala shaqeeya ama dowladaha kale hadda oo ii sheeg adiga Yurubta ama ii sheeg adiga Turkidan ha noqoto ama waqtiga hadda la joogo qaarkooda intaan aan ogahay military attachee badan aan la shaqeeyay dhammaantood waxay leeyihiin waxaan gaarnay da'da howlgabnimada waxayna ku baxaan da'daas ugu badan dal kastana wixiisa waa u gaar laakiin annaga waxaan qaadanay si aan loo dhihin madaxda sare ayaa keentay ama mucaarad ku ah ama wasiirka gaashaandhigga ayaa ujeedadiisa ay tahay in saraakiisha sarsare hadda jooga inay xilka ka qaadaan taas ma ahayn waxaan soo qaadanay sharcigii noo jiray amendment keli ayaan ku sameynay waxaan ugu qasabtay qorshaha walaashayda senatarada hadda ka dhawaajinaysay dib u dhiska ciidanka qaranka sida ciidamada qalabka sida si loo dhiso waxaan marnay runtii laga soo bilaabo shirkii UK ka dhacay maamul goboleedyada iyo madaxweynaha national security architecture-ka in lagu hagaajiyo ahayd taasi waxaan sameynay in la sameeyo wax la yiraahdo ORA in ciidamada lagu sameeyo operation readiness assistance TE-da ahaydna waa midda haddana gaarsiisay inaan biometric sameyno ciidamadii la tirakoobo la diiwaan geliyo ciidamada loo sameeyo health verification loo sameeyo filing system oo galfeel loo sameeyo annaga hadda waxaan soo dhameynay ciidamada oo guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay file system maanta ay leeyihiin askariga all detailskiisa uu ku jira asigoo hard copy ah asigoo soft copy ah marka dib u dhiska ciidanka waxaa soo hoosgalaya waxa aad ogtihiin waxa ka dhawaajiseen janaanada shaqeynaya oo hadda ii sheeg oo daada ah oo runtii shaqadan ku jira kuwa badan oo parallel ah jira oo xaq u baahan in la siiyo waxa jira agoon ayaa jirta in xaq la siiyo u baahan sharcigan u baahan in la meel mariyo si xaqooda iyo waxooda ay u helaan waxayna qayb ka yahay dib u dhiska ciidanka ama ciidamada qalabka sida in sharcigaani la meel mariyo ay xaqoodan ay helaan labo waxa hadda jira oo jooga janaana oo expert ah
oo runtii dalkan usoo halgamay wasaaradda gaashaandhigga mushaar ay ku bixiso oo meel fadhiya oo maskaxdoodii aragtidooda ay soo jeediyaan ayna ii sheeg la shaqeeyaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha hadda shaqada ku jirto. Saraakiishan oo expert ka ah waxyaabaha ugu badan looga faa'iideysan kara maadaama dib u dhisan ku jirna macallimiin ay noqon karaan. waxay noqon karaan la taliyaal, waxay noqon karaan ii sheeg adiga military attaché in caalamkii iyo waxyaabihii naga dhaxeeyay xiriiraadkii ee Soomaaliya iyo dunyada kale ka dhaxeeyay ka shaqeyn karaan. Si standardka jira aan ula jaan qaadno ciidankiina u noqdo ciidan X point wax la yiraahdo leh. wax waaye soo galitaanka waa leenahay ciidanka waa la qoraa 18 jira lagu qoraa, laakiin waa inay caddahay meel uu ku baxay askariga sida ummadaha kale ay u haystaan. ani waxay ila tahay mid siyaasadeysan ma aha, waxay ku qotontaa sharcigan oo sharci dhisay ciidanka, waa sharci xuquuqdooda iyo kala dambeentooda iyo ciidanamadooda lagu xaqiijinayo. annaga waxaan aaminsanahay ka wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida sababta aqalka sare ay keentay maxay tahay. wasiirkii cadaaladda waa ila yimid iyo wasiir dowlaha amniga maalintii koowaad akhrinta koowaad aqalka sare ayuu ila yimaaday, laakiin waxaa u xil saaran wasaaradda gaashaandhigga inay wado hawshan. waxaa u xil saaran ee aqalka sare geysay oo haddana aqalka sare keenta, laakiin wuxuu quseeyaa dhammaan ciidamada qalabka sida. horta asbaabaha anagana keentay oo hawshan aan u wadna maadaama mas'uuliyadna laga saaray oo qarankan uu u baahan yahay inaan waajibaadkeena ka gudano oo dastuuriga ah aan keenno waqti gelino si uu dardargalo. su'aalo badan ayaa waxaa naga weydiiseen dhinacyo badan taabanaya xaqiiqdii, qaarna uu ka mid yihiin in wax lagu daro, qaarna meel laga wareejiyo. khayr Allah siiya gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Mr. Bukhari waxaa moodaa sharciga dhan uu akhriyay, wuxuu ka soo bilaabay qodobka koowaad iyo midka ugu dambeeyay uu gaarsiiyay. aad buu u mahadsan yahay. sanataro badanna sidoo kale way ku darsadeen. annaga waxaan rabnaa da'da ayaa hadda ugu daran, waxyaabaha kale waa toosin, eray bixin iyo in la isku geeyo oo meel kale la geeyo waay. laakiin waxyaabaha ugu daran oo maanta meesha yaalla loo arkaayo in ciidamadii looga xadgudbayo waxay tahay meesha sharciga qodob kale waxaa ku qoran qofka ama askariga maalintuu ku soo biiray 25 sano iyo ka badan wixii ah inuu howlgabka aadayo. waa mahadsan yahay guddoonka difaacan waxay ku soo dareen arrinta ah in laga faa'iideysan kara option la wuu leeyahay. ani waxay ila tahay in hadduu ku jiro haddii kalena aan ku darno in sarkaalka haddii baahidiis jirta lasii isticmaali karo. midaan ogahay Algeria hadda Allah u naxariiste taliyaha ciidanka wasiir ku-xigeenkana hadda geeriyooday 80 ku geeriyooday, micnaheeda qofka loo baahan yahay shaqadu waa sii wadi karaa, laakiin waa inaan helnaa kuwa aan wadi karin oo parallelka ah ama siyaabo kala duwan wax u haysta, caafimaad xumo haysto si ay ku bixi karaan. horta waa in howlgabnimada naftarkeeda ay ku cadaato waaye. aad iyo aadna waa u mahadsantihiin soo jeedintiina oo runtii aad iyo aad u badan. wax waaye waxaan kala fadhiisanayaa guddoomiyaha ee guddiga difaaca, waan idinku soo celinaynaa insha allahu tacaala. anaga hadda waxaan qorsheynaynaba maanta inaan arrinkiisa aan guda galno, laakiin maadaama soo jeedinimo badan ee meeshan ay yaalaan siduu guddoomiyaha ku dhawaajiyey, waxaan rajeynayaa inaan dib ugu laabano wixii oo meeshaas ka duwan aan idin keenno. waxa waaye soo jeedintay ka mid ahayd Jenaraal Muuse iyo Maxamed Cusmaan, dadka hadda isku dhawaa qodobadu uu ka hadlay, iyo xijaar oo agteeda fadhiya oo su'aal iga weydiiyey. fasaxa kolley waxaan ku qornay qodobada meesha ku qoran ayay ku qoran yahay. fasaxa gaarka ah
soo socda iyakana looma xisaabayo mana ka mid ah iyakana noqonaan muddada lagu mudaynayo iyakana howlgabnimada ama hibo. B, fasaxa maqnaasho aan lahayn iyakana lacag bixin sabab shakhsiyadeed awgeed ama fasax aan maqnaasho ka dhasha shaqo ka joojin. waxaan u malaynaa midkii shaqo ka joojinta ah taas waa cadda u malaynaa